بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani warbaahinta halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idin soo gudbin doono waxa kamid noqonaya madaxda hore dalka oo maanta jahwareer ku galay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xilli ay doonayeen inay gaaraan garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne maxamed cabdi waare madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle oo ka hadlay xayraadii maantay eedeyna dusha kaga tuuray madaxda hore dalka Soomaaliya حالس أمني أو كبد بعدين ما حد يهرب دلك الصومالية حسن شيخ محمود يا شريف شيخ أحمد هل استاسم حيتاي وندلة وذاك الدورنا محا كانين وبعض صفك الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية حسن علي خير إيمان وكتيج لها مجالات البلدوينة سابته أي ردين سو جود من دورنا عبد الرحمن عبد الشكور والسنة دولة الفدرالية الصومالية وهو باقي إنه قاضي إسبارة والشيء إنه أركل لقتي qodobada ay idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha 11 November 2019 u diyaar garooba saaxiibayaal daawashada qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran channelkeena subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkeena saaxiibayaal si share gareeya ayna ku bilaabnay wafdi hogaaminayaan madaxda hore dalka Soomaaliya soo martay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxay gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib jahwareer lagu geliyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale jirtay in markii ay gaareen garoonka magaalada Beledweyne lagu amray in aysan gelin gudaha garoonka diyaaraduna aysan degi karin raadaarka ayaa la sheegay in la damiyay sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku soo waramayaan in halkaas ay gaareen madaxweynaha hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud diyaaradii oo markii hore loo sheegay inaysan Beledweyne ka soo degi karin lana dansaday raadeerkii hagi lahaa ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday inay halkaas ka degto sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ku sugan magaalada Beledweyne kana mid ahaa wafdiga madaxdaani ayaa waxay sheegeen in diyaaradda loo ogolaaday muddo dheer kadib inay halkaas ka degto waxaana diyaaraddu ay caga dhigatay garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne inta uu wada hadalka socday ayaa la sheegayaa in ay diyaaraddu taagneeday hawada lamana heli karin wicitaan fudud inay halkaas ka degto diyaaraduna way cusleeday arrintan ayaa waxay abuurtay qalqal xoogan waxaana madaxdu u baqeen noloshooda halis gashay safarka Beledweyne ee madaxdii hore dalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ahaa mid dhib fara badan ay kala kulmeen waxaana cadaadis ama canaad lagu saaray garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaana in badan ay ku xayirmayeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xilli madaxdaasi ay doonayeen in ay gaaraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa way la soo dhaafay si xoogaysanay khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha hore dalka Soomaaliya soo martay waxaana dawladdu dhan walba ay cadaadis ka saaraysaa madaxdaani marka ay doonayaan inay safar galaan waa markii labaad oo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Cabdullaahi Uthmaan madaxdaani culays lagu saarayo kadib markii mar hore ay damacsanaayeen inay gaaraan magaalada Kismaayo waxaana halkaasi dhibaato xoogan loo geystay madaxda hore dalka Soomaaliya soo martay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay yihiin shakhsiyaadka ugu badan ee dhibka xoogan kala kulmaya madaxda haatan filla Soomaaliya hogaaminaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle maxamed cabdi waare waxa uu ka hadlay culayskii maanta la saaray madaxda hore dalka Soomaaliya soo martay waxa uu sheegay in halis amni madaxdaasi ay galeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu sheegay in diyaaradii siday madaxweynayaasha hore dalka ay ka degtay magaalada Beledweyne ayna ku xadgudubtay xirfadii duulimaadyada iyo shuruudihii u degsanaa waxaana uu sheegay inay la xisaabtami doonaan shirkadda diyaaradani soo qaatay shir jaraa'id uu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax isur istaagay oo ay ku sameysay dawladda federaalka Soomaaliya madaxdii hore dalka soo martay balse garoonka uu roob ay awgiis xayraad loo saaray waxaana uu sheegay in dhammaan diyaaradaha lagu soo wargeliyay in aan laga degi karin magaalada Beledweyne diyaaradda qaaday safarka madaxweynaha hore Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay la xisaabtami doonaan waxa intaas ku daray in diyaaradani ay sameysay xadgudub oo ay xitaa jawi kale ay ka abuurtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dalka Soomaaliya madaxdan ayaa waxa ay ahaayeen maanta kuwa si weyn loo faraqirayay bulshada hadaleentooda inta badan waxay yahay xayraadii maanta la saaray madaxda hore dalka soo martay waxaana dadku ay sheegayaan in madaxdaasi la badbaadinayo iyaga nafsadoodana loo baqayay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Hirshabelle in la wadaago maxaa ahay warar ilaa iyo saakay la isla dhaxmaray oo social media hana wax badan la soo galiyay dad mas'uuliyiin ay soo galiyeen oo la xiriirta safarkii labada madaxweyne hore iyo wafdiga la socday ay ku tageen magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne sidaad la socotaan waxa ayaamankan oo dhan aan la tacaalayna furitaanka airportka
oo marna xiran markii roobdo marna furan markii uu qalalo xalay muxuu ahay 8 saac iyo bar ayaa waxa soo wacay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo ii sheegay in wafdigaas uu beledweyne ku soo wajahan yahay maadaama asagoo hadda uu beledweyne joogo anigana hadda xamar aan joogo waxaan u sheegay in muxuu ahay hadii roobabka ilaa xalad da'ay ilaa fiidkii da'ay hadii ay muxuu ahay aysan dhibaato xoog leh aysan gaarsiin in aniga iyo ra'iisul wasaaraha naftigeenu aan u soo soconno marka gurmadkaas guud oo dadka loo sameeyna inay berrito oo maanta ah inay maaragtay ma sha Allah ay baraka badan meeshaas ka dhici doonto sidaasaan muxuu ahay anagoo walwal ka qabna xaaladda airport iyo xaaladda muxuu ahay runwayga ayaan ku kala seexanay saaka 6:00 waxa ii soo diray warbixin aan idila wadaagi doono joint air services muxuu ahay ururka la yiraahdo oo hawada muxuu ahay information-keeda lagu wadaago oo dawladda iyo AMISOM iyo UN iyo kulli information-ka ay muxuu ahay ay ku wadaagaan waxa la ii soo diray warbixin ah in 600 mitir oo runwayga ah gaar ahaan dhinaca bidix inay biyo fadhiyaan sawirradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirixoonayaan gaar ahaan diyaaradaha waaweyn maadaama runwaygu uu yahay 200 mitir haddii 600 mitir ay halaysan tahay 1400 laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helicopterada recommendation-kaas la ii soo diray 2 saac iyo 27 daqiiqo waxaan wacay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu airport ku jiro waxaan rabay inaan la wadaago macluumaadkaas oo iraado madaxweynuhu airport waa sidaas anaga naftigeenu standby ku jirnaa runtii aadaan ugu xumahay madaxweyne xasan sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri adiga madaxweynaha tahay maxaa ka galay mataqaana civil aviation runtii waa runtiis badana anigu mataqaana howlaha diyaaradaha iyo wixii daga iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahuna wafdi muhiim oo yahay laba madaxweyne mataqaana hore xildhibaano xaaladda laga deyrinayo safarka oo yahay high profile يعني go'aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go'aansaday waxaan madaxweynuhu waa runtaa laakiin maanta oo kale maaha maanta meeshaas wixii ka dhacay mas'uuliyadeeda anay ifuushaa anaana go'aankaas qaatay bal aan sugno almiina ilaa 5 saac 6 saac muxuu ahay inay qalashaab laga yaabaa runtii xiriirkii aan la sameeynay muxuu ahay dadka dhulka jooga iyo AMISOM iyo guud ahaan muxuu anaga Hirshabeelle dadka jooga xaaladda runwaygu waa soo hagaagaysay laakiin wali recommendation wuxuu ahaa diyaaradii oo mataqaanaa weyn inaysan muxuu ahay aysan isku degi karin macluumaadkii aan air operations ka aan isla qaybsanay iyo message-yadii hadda doontaan waa idin qaybsan karaa recommendation-ka ugu dambeeyay wuxuu ahaa Fokker 50 inaysan ku degi karin oo waliba raran oo wada buuxda madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen deegaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan door bidaynay inaan maanta runwayga baxnaanino berrina ay baxaan aniga naftigaygu hadda berrita inaan baxaan rabo beledweyne aan aado ayaa ii qorshaysan nasiib daro prime minister ko raaci rabay oo ka faa'iideysan rabnay berri safar ayuu galabta yahay ma suurta galayso waxa rabaa marka wararka social media la gelinayo la leeyahay Hirshabeelle noo diiday muxuu raadaarana la ka dansaday dawladda noo diiday kanay ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha waxaan si gaar aan uga xumahay baaritaan aan ku sameyn doonaa shirkadda diyaaradda iska leh oo runtii si unprofessional u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweynayaasha mar walba laha annaga riskiga qaadanayno waa ku degi karnaa go'aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin go'aankaas pilotku iska male rakaabkuna iska male waxa iska leh hay'adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulku ku sugan yahay shirkadaasu waxay ku xadgudubtay muxuu ahay ethics-ka iyo professionalism-ka duulimaadyada
waqtigeedaanan muxuu ahay aan kala xaali doonaa hadda iyo dan diyaaradii walwal badanayna gelisay inay baxday inay joogto inay soo noqotay inaysan mataqaana soo noqon waa ku wareernay xataa civil aviation waxay noo sheegeen diyaaradii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyaasha aysan ka jawaabeen runtii walwalayna gelisay in diyaarad intaasoo mas'uula wada inay raadiyihii laga wacay ka response ka bixi weyso oo iyadoo indhala degto waxa kale oo naloo soo sheegay diyaaraddu inay dhowr jeer isku dayday inay runwayga ku degto dhaaftay soo wareegtay ku soo noqotay riskiga intaas la eg iyo mas'uuliyadda intaas la eg iyo tahlukada intaas la eg shirkadaas qaadatay waana kala xisaabtami doonaa wafdiga iyo muxuu ahay iyo labada madaxweyne hogaaminaa hadday nabad ku degeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin annagana kurbadii waa naga degtay laakiin ra-iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ka baaqday safar uu ku tagi lahaa maanta magaalada Beledweyne dadku ayaa waxa ay ku sheegayaan baaqashada safarkaasi sabab fara badan ra-iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka baaqday safar uu maanta waxa ay ku tagi lahaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay fatahaado ku dhifteen waxaana fatahaadahaas ay saameeyeen guud ahaanba magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan wararka ayaa waxa ay sheegayaan in sababta Khayre Beledweyne uga baaqday ay tahay roobab ka da'ay saacadii la soo dhaafay magaalada Beledweyne isla markaana garoonka magaaladuhu uu yahay mid xiran oo saameyn biyo ay ku yeesheen dhinaca kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dib loo fasaxay ama culayskii saarnaa garoonka la qaaday waxaan garoonkaas ka degay madaxdii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynayaashii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Beledweyne kulamo kala duwan halkaas ay ka wadaan guud ahaan saaxiibayaal warkii aad ka daawanayseen warbaahinta halbeeg wararka waa naga intaay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh